هان شعب reer Somaliland iyo saxaafadda madax bannaan Somaliland ba aad iyo aad baan u salaamay waxaan doonayaa in saakaydi ku yeeray inaan idin sheego waxyaabo aad u muhiim ah siyaasiyanna mustaqbalkayga siyaasigana ku saabsan khuseeyana ugu horreyn waxaan doonayaa inaan shacabka reer Somaliland iyo saxaafadda u sharaxo sababaha ugu muhiimsan ee aan uga mid ka ahaa xisbiga wadani oo aan ahaa xogeeyay duulistii hawada ahaa xubin golaha dhexe ah ahaana xubin gudida fulinta ah waxaan halkaasi u joogay ama xisbiga uga mid ahaa muddo 3 sanadood inay maxay tolo nidaamka dimuqraadiga ah ee dalku uu noqdo mid kora kaalin gala hana qaada dhalinyaro ahaana aanu noqono kuwo saxwo aanay ka muuqan qabyaalad iyo xafiltan iyo xigaalaysi is-eriyad aan ku dhex korno kuna dhex barbaarno shacabka reer Somaliland iyo dalkana wax weyn ugu tarno taasaan wadani ku joognay wadani hiil baan u ahaa oo muu hayn haybtay waxaan ahaa shakhsiyaadka kooban ee taraxayay ee sida hagarleeyda ah ugu shaqeynayay uguna hagar baxayay hadiya habeen taasi oo aan doonayo inaan muujiyo ruuxda iyo kartida iyo dadaalka xad dhaafka ah ee qof ahaan igu jira mujtamaca reer Somaliland sidii aan xisbiga ugu shaqeynayay uguna hagar baxay dhammaantood waa ka marxaati waana ogaayeen maanta tahay maalin sabtiya jawga hargeysan yahay mid aad u qurxoon bishna tahay 23 waxaan go'aansaday oo go'aan ku gaaray gibi ahaanba inaan ka tanaasulo xisbinimadii xisbiga wadani kana baxo xil haday tahay xubin haday tahay iyo hadii ay gool dhaxatayba sababahan uga tagayna waxaan jecelahay inaan bayaamiyo oo si cad oo saxar la qofna aanu ku margan qof walibana ku qanci doono aan u sheego waxaan halkan ku diyaariyay oo dhinac kasta ka eegay 9 qodob dartood inaanan ka sii mid ahaan karay xisbiga bahweynta wadani ee aan lifti ka qaato qof ka madax bannaan noqdo qodobka koobaad xisbiga wadani wuxuu noqday mid luumiyay doorkiisii mucaaradadeed kana soo bixi kari waayay kaalintii mucaaradnimo ee bulshada reer Somaliland ugu dooratay inuu wadani noqdo xisbi mucaarada oo matala kana soo baxa ururadii loo codeeyay 2012 kaasoo xisbigaasi gadhwadeen ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi kuna gaaraan hogaanka dalka matalaana kana hor yimaadaan dawladda jirta iyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye xisbigu kaalinta wuu gabay manuu gudan qof kastaana waa tabaya in doorkii mucaaradada xisbigu uu meesha ka maqayay kaas waa qodobka koowaad qodobka labaad taladii xisbigu waxay gacan u gashay cid aan siyaasadda u ehelahayn xisbigana ku joogta haybnimo gudoobiyana taa ku xigsanaysa hadba sidii iyagu doonayaan u maamulaya waxay iyagu doonayaan soo saaraya waxay iyagu doonayaan ku dhaqmaaya waxaad moodaa taladii xisbiga lagu hogaamin la laguna wadi lahaa inay noqotay mid golo ka fuula oo sidii ciyaar batar oo la tumanayo wixii la doona laga yeeliyo waxa luntay 3 hogaamintii xisbiga wadani jihasan oo shacabka reer Somaliland ay ku abshiraan ku soomaan kuna afraan hogaamintiisu maanta ma aha ee way leexsantay waana dooni badweyn heehaabaysa oo maxay ahayd tolay dabiil sidato waxaan ahay ayay tiri gabadhii haystay baal dabiil sidatee Allah ayow ibixi afar ma jirto mabaadi asaasiya oo xisbiga wadani leeyahay kagana duwan yahay asxaabta kale ee u cidiyo kulmiye ma jirto sumad iyo baadiso iyo aragti siyaasiya oo xisbiga u gaara oo qofka wadaniya ee nuuraddiin oo kale ama lamida ee ka midka ah uu aaminsan yahay lagu yaqaano hogaankiisu aaminsan yihiin ku dhaqmayaan ku xisaabtamayaan shacabka reer Somaliland ay leeyihiin aragtida iyo mabaadidaasi waa kuwii wadani xisbi siyaasiya oo aan aragti lahayn oo aan mabaadi siyaasiya lahayn ma noqon karo xisbi ummadana been baa loo sheegaya mana cid sheegi kartaana mabaadi iyo hab qoraal xisbigu leeyahay oo maanta la raaca ma jirto sidaa darteed waxaan aan arkay markay caynka tahay gudihiisana aanu taa abuuri kari weynay sixi kari weynay
xaajna ay noqotay taa golka fuulka ah inaan iyadana ummadda u bayaamiyo oo sababaha dartood uga tago 5 ma jiraan qorshayaal habaysan oo la haadiyey oo la faguray oo siyaasi ah xusbi aan qorshe siyaasi lahaynna dalkana ma hogaamin karo mana jihayn karo sidaas darteed maanta istiraatiijiyad cad oo caafimaadka uga qorshaysan wadani ma jirto mid waxbarashada uga qorshaysan ma jirto mid wadooyinka iyo jidadka uga qorshaysan ma jirto mid biyaha uga qorshaysan ma jirto hay'adii aan u matalay duulista iyo hawada mid aan uga qorshaysan ma jirto حتى وحن maxay tolay inaan mucaaridno oo halka inta soo fadhiisano dhalilaha jira sheegnimooyi qorshayaal siyaasi iyo kuwa maanta joogaan ku bedelayna xusbigu malaha manu abuurin mana lahaan doono intan ogahay umana abuurna 6 xusbigu wuxuu u baahan yahay isbedel dhaba reform taana waa laga baqanaya oo lama sameyn xusbigu guniyo baar ilaa maalintii ururka ahaa ilaa maanta lama abuurin lamana samayn isbedel keeni kara in lagu guuleysto ee waxa weey waa huwan in la ishuursadaana waxay muujinaysaa inaan la gaadhin dariiqii guusha shacabkana aan aragtidooda laga turjumi karin xusbiga shirweyne waxa ugu dambeysay markuu ahaa ururka shirkii golaha dhaxan burco ku qabanay wuxuu ahaa mid lagaga baqanayo ama lagaga cabsoonayo inuu xusbigu qabsado shirweynihiisii laguna soo doorto xubnihiisii hoggaanka ahaa gudidiisii fulinta iyo golaha dhexe structure sax ah oo guuleysta oo ummadda lagu dhisana halka kula yimaada xusbigu wuxuu daba socdaa kulmiye halkaas laga sugaya wixii ka soo cadhooda ee aragti siyaasi iyo wax lagu hogaamiya wallaahi inaan laax laga jirin halka ma taalo sideed xisbiga wadani wuxuu noqday xirageel oo aan xayndaab lahayn oo aan xayndaab ka celiya cidna ka xaraatimeeya habeeraatay aanay jirin qof kasta mid xarig ka cabsooda midana siyaasiya leh waxa uu ku soo biyo shubtay oo uu ku soo guniyo ururay xisbigii wadani waxaana noqotay meel xarka lagaga baxsado wuxuu noqday meel shakhsiyaadna siyaasiya oo gaar ah ay yimaadaan oo ay ka mid noqdaan oo waliba tiradooda ay qabtaan waxaanu sheegi doonaa sharaxi doonaa insha Allah mustaqbalka yaani shakhsiyaadka xisbiga hoggaankiisa haya ee dana gaar ah iyo masaalixiyo dhuumasho ugu jira waliba shirka fadhiya sagaal xisbiga wadani inta badan ma guuleysto kumana hogaamiyo go'aamada siyaasiga ah oo qaato xisbi go'aankii uu qaatay siyaasiga ahaa aan meel marin karin xisbi aan wixii uu go'aansaday shirarkiisa golaha dhexe iyo fulinta lagu soo ansixiyay aan meel marin karin talada ummadda ma qaadi karayo xisbigii wadani wuxuu noqday markabkii Titanic ee sidoo u socday badweyn buurta jiray dalawar xumada saaran xisbiga wadani dartiina waxaynu eegi doonaa xisbiga wadani sidii Titanic xilligu buurta jiiri doono عشبة فيلم كباح عشبة جرن كبير سقد حبة قيد عنا كبري سوا ودني ما نقول بوحة إيمانا يقف جرنوايا أو أنا حين كيلوب هنا بريمات وحن كسوق بجبينيا حسبي ودني ما هيستو هجامية طريقي سانكو هنوني كرا من الشوغان هجان كو هجامية إنه حسبي نقول يستو هجان كيسوه حمريا in ku dhow 5 iyo 30 xubnood waana sharci daro ururada waagelintu waxay ugu xisaabtan waayeen sharciyadan u ilaalin waayeen garan maayo xisbiga hoggaankiisu iyo structure-kiisu sida xir number 14 dhigayo waxa weeye 7 xubnood oo kaliya xisbigu uu ka bayray wixii loo aasaasay iyo dariiqi waxyaabaha aan xisbigu ugu tagay waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamid ah xaaladaha dalka ka taagan wixii looga baahnaa iyo doorkii looga baahnaa muuqaadan tusaale ahaan oo kale jabhada caare gudoomiye ciro maadaama caare isku haybi isku beel yihiin waxay ahayd ninka koowaad ee la dagaalama ee madaynta dalka ka shaqeeya ee dalkii dadka isku yeera isugu luuduwa maadaama uu doonayo garoon cad inuu ku ciyaaro dalka hogaaminay si xaada
ee yidhaahda ciidanka aniga ha laygu wareejiyo anaa nolol iyo miyirqab mid uu ku keeni doono la dagaalami doona isagay ahayd laakiinse dhaliil aan meel weyn gaarsiisnayn ayay kaga hadhay xisbiga iyo hogaankaba oo ah carro waanu cambaaraynaynaa doorkeedina may qaadan waxaa kaloo jirta in dalka xaalado adagi ku jiraan waxaa ka mid ah xaaladda galbeedka doorkii looga baahna xisbigu kamuu qaadan ee shariifka ahaa waxaana ahayd xisbiyadu mucaaradku inay iyagu wax weyn ka taraan arrimahaasi jira oo xukuumadda ku taageeraan oo shacabka ku baal istaagaan maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay cid isu ururisa mucaarad iyo muxaafid waxay u baahan tahay cid labada gacmood wada haysa ugu dambeyn waxaan doonayaa halkan si weyn u sheego maalintii dhaweeytay markii aanu ku baaqnay banaanbaxa haddana xisbiga iyagu markaanu taas samaynay aanu xabadii beerka u dhignay ee raggii yaacay fulayada hayaaceen ee carab dalabta lahaa anagu waxaan kamid ahaa raggii safka hore kaga jiray Soomaaliland markhaati bay ka ahay haddana xisbigu isaga ergo hoosta ka dirtay ilaa maantana waa ka muuse kula saaxiibadeeda barka jaamac batuun iyo afiyo xoogayihii guud ee xisbiga Khadar Cabdi ee xabsiga madheere maanta ku jira ee cidi aanay booqan karin cidi soo eegi karin cidda maanta halka dhigtay waa wadani ee ma aha xukuumadda yaan lagu eeday xisbigu wuxuu ahaa kii mas'uuliyiintiisa la soo bixila seemuu garan cidda lahayd shir baanu dib cidda lahayd intii ummadda soo hor istaagtay waanu joojinay waanu hakinay adeer may hakinay way wadi kari waayeen way baqdeen aniguna taa ummadda kama qarin karo ninkii ummadda soo hor istaagay lahaa waanu hakinay muu hakine talay ahaydoo way baqeen waanay wadi kari waayeen sidaa markay tahay waxay noqotay in hadcad cidlo laga helo kuwa aniguna kuwa cidlo laga heli doono ma ka mid noqon doona waxaana siri go'aaga ka qaaday intaan cidlo laga helin kulliba maalinba nin baa cidlo laga helayaa waana ka qaatay ugu dambayn waxaan xisbiga kula talinayaa maadaama aan ka mid ahaa gun iyo baaraan u ogahay si hoose iyo si sarabana aan uga warhayo inuu xisbigu isu tashado reform lagu sameeyo sal iyo baara in maanta xisbiga isbeddelkiisa laga doono gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Ciro in halkaa laga daydayo iyo hoggaanka xisbiga iyo golaha dhexe iyo guddida fulinta taasay maanta taladu taalanti weerarta xisbigu ku badbaadi karayo sidan maanta ciridkan arkaayo ilkaga muslim sidan ku arkayo maantana ma aha kii dalka aan la guntiga gabagabadii waxaan doonayaa inaan u madax bannaanaado doorkayga siyaasiga ah ee nin dhalinyaro baan ahay mustaqbalkan dalka ku leh waxaan jecelahay ragga dalka hogaaminaya inaan ka mid noqdo inaan aqoontayda dhiso oo wax iga dhiman aan biirsado jaamacadaha dalka galo oo si kasta oo qofnimo ahaan qofku aqoontiisa isu dhisi karo u madax bannaanaado hadday tahay maanta dhex baan noqonaya haddaan dhinac ahaa dawladdii aan culayska ku hayay xukuumaddiina waan ka dulqaaday maanta laga bilaabo cid walibana way tabi doontaa doorkiiyo kaalintii shariifka ahaa halka aan ku lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin fariintaasoo dhammaystiran baan jeclahay inaad bulshada gaarsiisaan haddana guntiga gabadh waxaan idiin soo bandhigayaa kaarhkayga iyo golaha dhexe waa kan Nuurudiin Ibraahim oo Cabdi oo xogayaha wadani ahaa nambarkiisuna yahay tirsiga 250aad waxaana muuqata dadka ugu horeeya xusbiga inaan halkaasi ka mid ahaa maanta laga bilaabana waxaan ahay siyaasi madax bannaan oo aragtidiisa iyo aaraadiisa si dhexdhexaada u soo bandhigi doona xogo badan oo muhiimana gadaal baan ka sheegi doonaa oo idinka faafin doona iyo waliba dhibaatooyin badan oo inta ka sii waaweyn oo jira aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii aad su'aalaha arrimahayga weydiinaysaan diyaar baan u ahay way mudan haddaan su-aasha ugu horeysa ku weydiiyo wax badan baad ka soo warrantay dee xisbigaad ka tirsanaabuu ahaa xaalad adag buu ku jira maa la odhan karin waxaad ka baqatay xaaladdan xisbiga ku jiro haddaad xaaladdan ka baqatayna maxaa keena inaad siyaasadda soo gasho mar haddaad ka baqanaysa xaaladaha qaarkood maalintay u daran tahay nin ku diirsadaan ahay maalintii la soo baxayey ninkii baqanayey maan hayn cismaan oo kuwii ugu horreeyey baan ahay xaaladuhu markay jiraan noocan oo kale ayaa la kala baxaa waa marka caaniyo biyo loo kala baxo ee aan la suursan xaaladda maanta jirtay xaaladda adag ee inoo muuqataa inaan xisbigii lagu hoggaamin karayn ayaa ii muuqataa sidaasi darteed ayaan uga qaatay sababaha ugu waaweynna waxaa ka mid ah xaaladdan aynu ku sugannay adiguba aad xustay baa ka mid ah marka xisbigu xaaladdan adigii lagu jiro mid ku shaqayn karaya ma aha aniguna xisbiga dhexdiisa mid ku shaqayn karaya ma yihi waxaan ogahay hore xisbiga waxa looga xidhay guddoomiye garabka dhalinyarada Maxamed Sidiiq ninka keliya ee ku dhiiraday ee ku hadhay ee maalintii la soo baxayay ilaa maanta taagna anigu ahaa waa mid mudu markhaati ka tahay wali hore ka sii horreysay waxa la xidhay xogayaa ciyaaraha Yunus Axmed Yunus iyo Maxamed Sidiiq laftooda ilaa aan kala soo baxayna kamaan xadhin kuwa maanta xidhanna sidaas leeg sidaasoo tahay
dee maalinba qof cidlo laga heli maayo xusbiguna wuxuu u baahan yahay dib u habayn iyo reform rasmiya sidan kuma socon karo ummaddana laguma jebin karo dadkii shalay toole burco ka banaanbaxayey ee boqolaalka ahaa ee la baryaayey ee oodaha soo goostay waxa bahdilay kulankii guriga ciro ka dhacay ee odayaashii madasha iyo madaxweyne ku-xigeenada hore la lahaa kaasaa bahdilay kaasaan ka tegey dhinaca kale nuurudiin lama kala tashatay xubnaha iyo hoggaanka xisbiga inaad xisbiga ka digarugnaysad halkeesa ku xigi doonta wallaahi dad badan baan kala tashaday waa runtaa xisbigii ugu horreeyey isaga jirkiisa aan ka mid noqdaa waddani buu ahaa waddani xisbigii soo dhaweeyo wanaagsan buu ahaa ummadda firi karo inaan siyaasadda taageera ahaado qofka shicibka aan ahaado ucid taageeraan hayo shicib baan ahaa kulmiyana sidoo kale taageeraan ahaa shicib baan ahaa laakiin xisbigii ugu horreeyey aan jirkiisa ka mid noqday si dhaba ugu biiro ee siyaasadayda ku soo bandhigi kara ee aan ku doob dilaacsaday aan ku soo baxay waddani buu ahaa cadceedna sacab laguma qarin karo mana dafirsanin kamana meel kaloo nuga diga rabtaana ma jirto laakiin xisbigu dariiqu ku socdo dariiqan kaga mid ahaan karayu noqon waaye nafteedaan u hubeeyo markhaatiyaal baa laga wadahayo xisbiga waan u shaqeeyey muddo 3 sannadood xoog iyo xoolo iyo tacaba intaba waan geliyey waxaanaan ahay raggii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay ee 2 sannadood ee la dhacay ee la miirdoonsanaa ee maxay ahayd tolay guuldarrada la yaboorsaday raggii xisbiga intay kor u soo qaadeen xisbinimadiisa muujiyey ee xisbi mucaarida oo maalin keliya aan magaranaysaa saxada siyaasadda ka bixin ee ku hayay baan ahaa waan u shaqeeyey meel wanaagsanna waan soo gaarsiiyey waana liitibi doonaa weliba anaa ku kalsoon tahay way haddaan su-aalintaa kugu daro shaandhayn uu waday guddoomiyaha xisbiga waddani xogayaashiiba la isku bedelay ma jirta adigoo ka warhaya isku shaandhayntaa inaad ka sii orada arrintaa niyo wallaahi waa su-aal fiican dadkan in loo bayaamiye tahay warniyo sakaaro xaar muuqmuuqday aasaastaa in wax la qariyo la kala qarsadaana waa muhim war isku shaandhayntu dee xogayaasha ma aha xogayaashu iyo anugu aan ka mid iyo kuwa soo socda xisbiga ma hogaamiyaan guulna ma gaaraan siyaasaddiisana ma dejiyaan war xisbiga isku shaandhayntiisa iyo isbeddelkiisu hoggaanka xisbigan iyo u baahan cabdulqaadir jirdi waa guddoomiye kumeel gaadhaa la yidhi istaraajirka xisbiga meelna kama jiro orodoo xidhna barfuuni bay asxaabta ku aasaasantay eeg waa meel kakakac markaa waxaynu u baahannay xisbi isku shaandhayntiisa ay ka bilaabmato cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo inta isaga ka hooseysa kaasaa lagu qaangaari karaa laguna socon karaa waa maraato xisbigu tan shirkii golaha dhexe burco lagu qabanayay iyo isku shaandhaynta maanta la wadaaba yaan ummadda lagu jahwareerin waa maraato isku shaandhayntuna hoggaankaa u baahan halkaa marka la taabto ayaa isbeddel laga sameeyey xisbiga